waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo maalinta caalamiga ee afka hooyo. Waxaa xuska soo qaban qaabiyay xarunta akaademiyad goboleedka afka Soomaaliga ee AGA, waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Daahir Maxamuud Geelle iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana goobta ka muuqanaya dhalinyarada qorayaasha iyo kooxda fanka ee Hiddo oo iyagu soo bandhigay heeso ka tarjumaya afka iyo muhiimadiisa. gudoomiyaha akaademiyad goboleedka afka Soomaaliga ee AGA Professor Maxamed Daahir Afrax ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay muhiimadda 21 Febraayo isagoona xusay toddobaadka soo socda oo idil inay socon doonaan barnaamijyadan. waxaa toddobaadkan aanu bixinay toddobaadka afka hooyo oo maanta ay halkan tan furitaanka u tahay waxaa socon doona toddobaadka oo dhan maalmaha soo socda oo dhan tamashaadiyadaas iyo munaasabadahaas akaademiyada laamaheeda iyo muxuu ahaa wakiiladooda idaafaha dunida ka qaban qaabinayaan. akaademiyadani waa caalami urur caalami weeye walow goboleed ay ku magacaaban tahay gobolka geeska Afrika laakiin caalamka oo dhan lixda qaaradood afar ka mid ah ayaa wakiilada iyo magaranaysaa laamaha akaademiyadu ay isla hal ku dhag ayagoo ku dhawaaqaya hal ku dhaga halkaa ku waxaa sidoo kale madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Daahir Maxamuud Geelle isagoo akaademiyada uga mahadceliyay qabashada munaasabadan lagu weyneynayo maalinta afka hooyo waxaana uu dhalinyarada kala dardaarmay ilaalinta afka hooyo gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha. bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan la wadaagaynaa munaasabadan qaaliga ah afka Soomaaliga isku xiraha bulshada Soomaaliya oo muhiimka ah waayo oo maaragtay aan marna la dabcin karin dibadda hadii la tagan waxa la ogaado qofka Soomaaliga ku hadla iyo qofka aan iraahdo daayirta Soomaaliga ku hadasho dibadda joogto iyo daayirta aan Soomaaliga ku hadlin dadku waxay aad iyo aad ula safan yihiin daayirta Soomaaliga ku hadasho hooyooyinka oo caruur oo Soomaaliga ku hadlaysa guriga ka soo saaran iyo dibadda joogan tixgelin gaar ah leeyihiin Soomaaliga markii horena hadda si degdeg ah waa lagu qoray oo runtii u baahnaa in la daba joogo saasaan u maleynaa luqadda haddii la qoro waa la daba joogaa si ay u kobcdo ilaa iyo hadda luqadda carabiga aad kuma kasan qoran ayaa la daba joogaa oo wax laga hagaajiyo luqadaha dhan. 21 Febraayo sanad walba waxaa loo dabaaldegaa maalinta xuska caalamiga ah ee afka hooyo iyadoona si weyn looga xuso Soomaaliya waxaana laga dareemaa goobaha xuska uu ka dhacayo weyneyn ilaalin iyo sida adag ee loogu faano afka hooyo. hay'adda akaademiyad goboleedka afka Soomaaliga ee AGA iyo hay'adda akaademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ayaa noqonaya hay'adaha u xil saaran ilaalinta afka iyo xusitaanka maalintaas muhiimka ah. Maxamed Khadar Maxamuud Geda Channel